السلام عليكم وعليكم الصوماليين. waxaan ka hadlaa keliya inta aan ka ogahay badda iyo sharciyadeeda tan iyo kontomayadii ilaa maanta intaan anigoo ka ogahay ama sharci gudaha ha ahaato oo dalka Soomaaliya ay samaysatay ama mid international ha ahaatee waxa badda laga yiri waa ujeedaan bad waxaan nahay dal bad dheer leh intii aan dowladnimada la qaadan 60kii badda waxay ahayd badda loo yaqaano badda dalka ama mare territoriality maxaa la yiraahdaa territorial sea wuxuu ahay 6 milyan marina 66 markii la joogo waxaa laga dhigay 12 milyan marina intii 60ka aan la gaarin 6 kaliya ah waa la badiyay 66 dowladda Soomaaliya shibilka ay markaas jirtay waxay gaarsiisay 12 waa la joogay waxaa la bilaabay in laga hadlo dunida ay ka hadasho badaha sidii sharci loogu sameyn lahaa oo adduunyada dhan ay isku waafaqi lahaayeen markaas badihii waxa loo bixiyo zoonooyin loo sameeyay mid waxa la yiri waa midaan 12ka oo mari territorialaha ah territorial sea mid kale waxa loo bixiyay EEZ mid kale waxa loo bixiyay continental shelf ama piattaforma continentale mid kale waxa loo bixiyay badweynta shir waxa jiray socday 9 sano oo 74 bilowday 82 dhamaaday oo loo bixiyay conference-ka United Nations-ka on the law of the sea waxaa lagu qaban jiray magaalooyinka Geneva iyo New York labadaas magaalo waxaa loogu qabtay secretariat-ka UN-ka yaa gacan siinayay waa meel turjubaanadii garaacidii duplication-kii wixii aad ka helayso laakiin dawladuhu ayaga tagayay wafdiyaal u dirsanayay oo kharadka iska bixinayay laakiin hawsha wadideeda yaa labadaas magaalo loogu xishay Geneva oo Switzerland iyo New York oo America Soomaaliya waxay lahayd iyadoo la og yahay badanadu iyo macnaheeda leedahay iyo sida ay tahay oo halkaan uga jeedno guddi u gaar ah oo arrimaha badda loo bixiyay wasaaradda arrimaha dibadda ka socda midda garsoorka ka socda madaxtooyada ka socda iyo meelo kale guddiga arrimaha gaarka ee badda loo bixiyay waxa madax ka ahay tan iyo intii dalkii aan laga soo cararin General Maxamuud Geelle wuxuu ahaa madax dadkii waagaas ku jiray sanadkii waxa la fariisan jiray 2 goor barke waxa laga hadlayo arrimaha laga hadlayo waxa ay wax badan malayga xaqiisa maraakiibta diyaaradaha kormaridooda maxaa la yiraahdaa baziin ama resource kale raadintooda xuduudaha sida markii wax isku qabto loo heshiin lahaa iyo meesha la aadi lahaa adigu waa inta badda ku saabsan oo dhan in hal mar laga wada hadlo oo meel la dhigo iyo 9 sano laga hadlayo dadku marka waa dawladuhu waa ka ra'yi doonaayeen qaara waxay qabeen 200 milyan marina ya annaga baddeena aan leenahay wax 12 lira ma jiraan gorgorton dheer yaa la garay intii wada hadalada ay socdeen yaa dawladda Soomaalidu ay jaati laba qaaday waxay yiraahdeen waa ka badinay 12kii waxaan ka dhignay 200 markii la marayo 73 waa marka shirweynahanu unadu adduunyada oo bilowday taasi marka ku dhigay sharci soo saareen domestic law waa la socday adigu la heshii
kan qaado kanaan ku siiyo dowladaha waaweyn waxbay rabeen dowladahan sidanadoo kale xeebta dheerlo waxbay rabeen afrikaanku waxbuu rabay yurubku waxbay rabeen qolyahan latin america waxbay rabeen adigu volumayaal 11 volumaa laga diyaariyey oo qofkii raba uu akhrisan karo oo hadda aan mid soo qaaday laakiin aad ka arkayso xaaladuhu meeshay marayeen 82 la gaaray waa la heshiiyey wax alla wixii meesha la keenay oo arrimo ahay waa lagu heshiiyey oo ay ku jirto in baddii aan waagii hore ka dhignay 200 ay 12 noqonayso 12 ha noqoto waxaa soo baxay ra'yi kale oo ah dhul kaloo badeed oo asna 200 oo milya marina oo la yiri ereyada dhaqaalaha aa la yidhi kaasaa leedihiin khayraadkiisa waxaa dhulka badda hoosteeda ku jira dhulka badda hoostiisa waxaa ku jira badda biyaha kore waxaa ku jira dowladdaas xeebta iska leh qof kale ma laha laakiin diyaaradaha iyo maraakiibta iyo waa mari karaan iyadoon la weydiisan maxaa la yidhaahdaa fiilooyinkan internetka qaaday iyo waxaan iyona waa la marin karaa laakiin amarna lagoma baahna in diyaaradu soo marto ama markab soo maro oo iska socda meesha amarka iyo looga baahan yahay waa 12 badda tirada balceedu oo yahay 12 marka baddii aan ka dhignay 200 oo milya meeshaasi ku baabaaday waxaana jira principia sharci ah adduunyada haddii sharci dibadda ah heshiis aad soo gashay waxa ku qoran iyo wax dalkaaga sharciyada aad samaysatay waxaa sarreeya kan aad dibadda ku gashay marka ma dhihi kartid dibaddan ballan ku soo qaatay haddana wax kalaan inta ka samaynaya waa principia oo laga yaqaano qofkii international law bartay yaa ka sikara tii marka saasay ku baaba'day waana xasuusatay soomaalida publikadu waxa ay qaylo ay ka dhigeen waana la dhacayay 200 aan weynay kana ahaaday kii kaloo ahaaday markay waa dad aan ka warqabin sida wax yihiin iyo wixii socday xamar waa wada yaaleen kulli madaxtooyada wasaaradda badaha wax alla wixii la gooyey iyo lagu heshiiyey iyo sida wax yihiin meesha yaaleen laakiin maanta ma yaaleen marka dadkii mar haddaysa haysan waxaasoo dhan waa xaqay u leeyihiin inay qayliyaan ama walwalaan waxaa arrin kaloo jirta arrin kaloo weyn oo dadku badanaa aysan la socon waa wax xataa af soomaaliga aan lagu heshiin magacii loo bixin lahaa dadka joolojiyada bartaa waxay yidhaahdaan dhulka meeshuu ku dhammaado oo aan arkayno wuu sii socdaa badduu sii hoos maraa meeshaan aan arkayno xeebta liidaa ma ku dhammaanayo dhulku wuu sii socdaa ilaa wuxuu gaaraa 200 oo milya mariin ah alshaan waa mool sii socda laakiin dhulkii aad garanaysa inuu dhulkii yahay aan la arkayn laakiin biyaha daboolaya kaas waxaa loo bixiyey continental shelf ama piattaforma continentale qof lasu u yaqaano weli af soomaali ma arkin carabi waa ku arkay faransiis waa ku arkay ingiriiska waa ku aragnay laakiin waxaa la yidhi taasna waxyaalaha hadda laisla raacay iyay ku jirtaa in dhulka uusan ku dhammaan meeshaan arkayno xeebta ee uu sii soconayo ilaa 200 labadaas boqolna sida biyaha kor mara oo EEZ-ka loo bixiyey yaa dowladda xeebta lahu ay xaq ugu leedahay wixii manafacadahu ku jira haddana waa meeshaas waa la mari karaa kaybalada iyo waxaas waa la mari karaa laakiin la'aanta malayna lagama gaadi karo benziin lagama raadsan karo gaas lagama raadsan karo dad adigoo aad u ogolaatay moogiye oo adiga kuu shaqeeya ama aad ijaar ka qaadatay sida haddaba dhici doonta kullu dhagaxayaan dhehna dhulkaas badda hoostiisa mara continental shelf baa loo bixiyey ilaa 200 mayl biyaha kore waxaa loo bixiyey EEZ oo taas waa wixii biyaha korkooda malaayiga iyo waxaas iyo korontada dabaysha ka dhalatay iyo aduu wax alla wixii faa'iidaha waxaa iskale dowladdaas xeebta